السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan subaxnimo wanaagsan saaki waa isniin taariikhduna waa 24 bisha maarso sanadka 2025 waa barnaamijkeennii ugu horeeyay subaxnimo aan idiin soo gudbinayo anoo idinkugu haya macluumaadka iyo wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan intaynu kala maqnayn qodobada barnaamijka saaki aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah sheekadii Israa'iil gudaheeda ka jirtay ee lisaystay waxay maraysaa inqilaab hebel wuxuu doonayaa inuuna inqilaabo hebel saas uu leeyahay xaaladdu farahay ka sii baxaysa cabsida gudaha Israa'iil ka jirta way sii xoogaysanaysaa haddaba tafaasiil ku saabsan xaalku sida uu yahay Israa'iil gudaheed iyo cidda afgambiga looga baqayo dawladda inay afgambiso waa ciddaas haddaba barnaamijkan idinkugu haya tafaasiisha wixii soo kordhay sheekadaas Israa'iil oo Gaza ku wada duqayn xalay waxa ay duqaysay isbitaalkii ka shaqeynayay magaalada Gaza ee la yiraahdo Mustashfa Nasir mas'uul Hamas ka tirsan golaheeda siyaasadda maktabka siyaasadda la yiraahdo ayaa isaguna halka ku dhintay dad kalena way ku dhinteen dad kalena way ku dhaawacmeen haddaba xaaladdu sida ay tahay barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa Gaza sheekada kale xiisaha leh saaka barnaamijkan idinkugu haya waxay tahay Masar wasiirkii gaashaandhigga oo amar siiyay ciidankiisa wuxuu yiri heegan hala galo haday yihiin kuwa xuduudaha iyo ciidanka cirka Masar haddaba Masar maxay ka shakisayaa ku soo duulaya xaalka Masar oo aad u kacsan abaanduulayaasha iyo saraakiisha ciidamada oo kulamo gooni leh haddaba warar ku saabsan Masar iyo cidda ay ku duuli rabto ama cidda ay ka baqayso inay ku soo duusho wixii laga qoray ayaa iyana barnaamijkan ku faahfaahinayna qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa safiirkii Mareykanka ay ka soo ceyriyeen dalkiisa South Africa oo hadda ku laabtay shalay oo ahad ahayd magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika oo si la yaab leh dadka Koonfur Afrikaanku ay u soo dhaweeyeen haddaba sheekadaas iyana qaybta dambe ayaan ku faahfaahin doonaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena saaka oo isniina idinkugu haynaa inta aan ku jirno barnaamijka wixii warar soo kordhay waan idiin soo gudbin doonaa haddii aad nagala socotaan Nadaara Show fadlan u soo wareeg Nadaara TV si aad u hayso macluumaadka ku saabsan wararkan oo dhameystiran haddii aadan wareegi karin linkiga ama qaybta aad ka galayso waxaan ku soo dhigaynaa qaybta fariimaha commentiska meesha lagu qoro midka ugu horeeya ayaa ku dhufanaysa si aad markaa u tagto toos channelkeena Nadaara TV inta aan markala kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo